ciidamada ammaanka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliyana waxay gacanta ku soo dhigeen dableedii ka dambeysay dil Allah u naxariistay magaalada Baydhabo loogu geystay mid kamid ah culimadiinka waaweyn ee magaaladaasi. Wariyana Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulla ayaa warbixinta warkan inoo haya. ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo xalayto howlgalo magaalada Baydhabo qaybo kamid ah ka sameeyay ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen 3 rag oo ay sheegeen in ay ka dambeeyeen dil habeen ka hor masjid dhaxdiisa loogu geystay marxuum Sheekh Madeer Sheekh Maxamed oo kamid ah jameecada masjidkaasi. raggani loo soo qabtay dilka marxuumka ayaa la sheegay in ay ku hubaysanaayeen xiliga la soo qabanaya bistoolado iyo bam, waxaana sidoo kale saraakiishu ay cadeeyeen in raggani ay ka mid yihiin ganacsatada miisaska yaryar ee wax ku gaday magaalada Baydhabo. Kusimaha wasiirka amniga ahna wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhaqan celinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka maamulka koonfur galbeed mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay ayaa ku ammaanay shacabka magaalada Baydhabo sida ay ula shaqeeyeen booliska. waxa uuna wasiirku sheegay in shacabka la'aantiisa ayna u suuragali lahayn sidii ay ku soo qabtaan raggani. laakiin masaakintaay shacabka hayay wal us galabsada in lahayn oo isku shaqaysaday mootiya bajaajka iyaashi in hamaaladay oo masaajidka dhastis la ka dili masaajidka dhastis soo ka jar atahayaadka la ka dili haddii araga haytan ciidamada booliiska ee shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Baydhabo oo iskaaladayaan wali ka guuleysadeen inay gacan dhiigliyaalkii oo hoolas qobadi dhamaantii Allah wada qobado iyo awal muran ee wal dhibaato aan ku dhina howlgalka xalay dhoon dareeri Ilaahay idin sheey walaha ka guuleysadi wali in mahadnagaane ummadda Soomaaliyeed dhamaantii gaar ahaan ummadun koonfur galbeed ee booliiska wal kalba miinteegin wali inteegin lankii shacabkun dhibaataya inay wax qobadan shacabkan iyo badbaadiyaan eed aan ka mahadnagaan wali ka kooytay shaqadun wada shaqeynta booliiska iyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Baydhabo oo galnyaas qabsaday iska duuban wali araga haytana hadee bulshada iyo meel dhooban iyo dadkii iska duuban Ilaahay idin sheey wali rajeene waqti dhowna inay helaan cadaalad inay helaan rajeen eediyadaas ka mahadnagaan Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Somali Cable magaalada Baydhabo.